munaasabadani culus oo ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen haweenweynaha gobolka Togdheer laguna soo dhaweynayay waftigii ballaadhnaa ee hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye oo ku sugan gobolka Togdheer una yimi wacyigelinta iyo ku baraarujinta qaadashada kaarka diiwaangelinta dadweynaha ayaa lagu qabtay Hotel City Palace ee magaalada Burco. dhammaan xubnihii haweenka ahaa ee ka hadlay goobtan ayaa ka soo jeediyay hadallo heesa iyo gabayo ay ku muujinayaan cudida iyo taageerada haweenweynaha gobolka Togdheer oo hayaan Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye oday ina ragii wadanka u soo halgamay yihiin dadna leeyahay waa askar ba dadka xukuumaya ragii dalka u soo halgamay baa xukuumaya baanu leenahay waxaan ugu ridaynaa Muuse fartii dhexe golay dhexe fartiisii oo dumarka 340 lagu baayacayo ayaa hadda reer Burco ku siiyeen haddana ta kale waxaan ku leenahay diyaar waa siyaasigeeni ee guulaystayaal kooga gora waa geesi abahay ee guulaystayaal kooga gora waa siyaasigeeni ee guulaystayaal kooga gora yareyn aqoon ayay u baahan tahay marka ugu horeysa taageerada inaga rabo kulmiye uu inaga helayaa waanu idin taageeraynaa mar walba waa taageeraan idin la garab taaganahay leedahay kulmiye waa taabaqaad kulmiye ma iilanayo kulmiye kor buu jiraa unugtiina u sheega kulmiye wuu isku xidhan yahay waad hantiday guushii gacanta ayaad ku qabatay waxa kuu markhaatiya koobkii ciyaaraha ee lagu guddoonsiyay kaasaa ku markhaatiya aan kugu soo dhaweynaynaa mujaahidiinta inay ugu jiraan tartankaaga in ay guusha ka dhaliyaan goolka oo aan rigoor ahayn shabaga lagu soo bismillaah Muuse codka waad isku halayn kartaa horena waa lagu sheegay waxaad ka garan kartaa gobolka Togdheer isku duubnidiisa golihii dhaxaad ku xisaabtami kartaa marka waxaan kugu bishaareynaa haddaan haweenka gobolka inaanu ku diyaarnahay inaan diiwaangelinta u diyaarnahay tashataan sidii shalay ay silaayo u garab yaacayeen ufada ay ugu kiciyeen xisbi kasta la tartamaya inay berrina la tartami doonaan hadalkiyo talada qabo la kulmiyo hadalkiyo rajada hadalkiyo talada qabo heshee waliga waxay ku hanohodiyo nasiib artiyow dhamaalka iga qaad waana dhahareebta dhalinyarada gaarsii warkani wuu dhadhamayaaye sida dhayda hoolaa dhansi way dharqanayaane adaa dhaawac baan soo maro dhimasho qoodaysa dhuuntaada adiguu dhex maray dhumuc rasaaseeda dhagax dheer ilaa dhaqosho iyo eegi dhinaceeda dhiigaaga weli daabshiyo ciidu dhididaaye adigaan dhawaaq odhani badan oo qalin ku dhuuyaaye iminkana bidhabxanagaagu iyo hilib la soo dheegay daamakaaga dhinac maqayiinoo feedha lagu dhaabee dhibkan nabadan loo maray u sheeg dhoohanaha moogan xorriyadani dhambaal may ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba wixii uu qadaray ayaa hor yaalla laakiin waxaanu kuugu bishaaraynaynaa in lagu diyaar yahay intan waa bandhig maaha taageeradu way dambaysaa ciyaar waa galin dambe waxaan u maleynayaa xisbiyada dadfiifiyada imka ku badan annagu waxaanu xisbi xaakinkii waanu ka soo daaliye kamaradaha marka waxaan u maleynayaa kubadda waanu ka dhalin doonaa insha allahu tacaala sida waxaan fariin ka sidaa salaanteediina sidaa dhammaan salaam xisbiga sooyaan waxay igu yidhaaheen salaan naga gaarsii inaan cid kale aanan qabanayno way ogyihiin oo isku halayn bay ka qabaan Dalay Shire oo kamid ah wafdiga gudoomiyaha ayaa haweenka gobolka Togdheer ugu baaqday inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta cod bixinta kaarka doorashada. Xaruur bay wadataa taageerayaal bay wadataa aynu wacyi gelino dadkeena oo kaarka qaadano markaas aynu xisbigeena u yeelinaynaa mar labaadna kursiga ku noqonaynaa insha Allah tacaala marka waxaan samaynaynaa kaarka ay qaato wasiirka wasaaradda duulistiya hawada Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani ayaa haweenka ku sifeeyay inay yihiin tiir kamid ah tiirarka Soomaaliland waxaana ugu bushaareeyay inuu bilaabmi doono sameynta iyo furitaanka garoonkii diyaaradaha ee magaalada Burco
wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan ayaa isaguna dhankiisa ka waramay halka ay marayso dhismaha wadada Ceerigaaba iyo Togdheer sheegana inay ku guuleysan doonaan hirgelinta wadadaasi. Maxamed Kaahin Axmed gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga Kulmiye ayaa uga mahadnaqay haweenka kulankan ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha xisbiga Kulmiye kuna adkeeyay haweenku inay qaataan fariinta ay halkan u joogaan oo ah ka qayb qaadashada diiwaangelinta dadka gobolka Togdheer oo bilaabmi doonta. Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa kelmad mahad celina ka jeediyay goobtani. wixii oo gabay iyo hees iyo kalgacal iyo hadal iyo niyad samaan muujiseen anigu erayaan ku cabira garan maayo sidii aad muddada 13 sano Kulmiye jiray loo taageeraysay xoog iyo waqti iyo adduun iyo caqli iyo tababar oo joogteen caawana ay ugu cadar badnay aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa waay abnaa Togdheer iyo haweenku weerahoodaba anigu waxaan aaminsanahay inay codkoodii siiyeen oo hawl dambe aanay sanadaha badnayd waxa quraynu u baahannahay waxa weeye inay guddiga doorashooyinka waraaqaha loo geeyo hadhowto ay tirnayaan. kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamada ay dadweynaha reer Burco kula kulmayaan wafdiga gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.